madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wafdigii ballaadhnaa uu hogaaminayay ayaa markii ay gaadheen gudaha degmada Baladhiga waxa si diiran loogu soo dhaweeyay degmadaasi subax aroor hore ayay dadweynaha kula kulmeen goob fagaara inkastoo ay si gaar ah u soo indheeyeen guud ahaanba xaaladda guud ee degmadaasi madaxweynaha ayaa waxyaabihii lagu qaabilay waxa kamid ah ciyaarta Chanderta iyo aqal hideeda aqal Soomaaliya kaasi oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka aynu leenahay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Aamina Waris ayaa waxay u mahadcelisay haweenka sameeyay aqal Soomaaliga iyo sidoo kale rag iyo haween kale oo ciyaarayay ciyaarta Chanderta inaan halkan mahadnaq ballaaran uga cesho degmada Baladhiga ee gobolka Togdheer oo si sharaf leh oo qiimo leh noo soo dhaweysay waxaan khaasatan anigu u mahadnaqayaa haweenka quruxda badan ee sharafta leh ee reer Baladhiga ee sida fiican noo soo dhaweeyay ee hidahan iyo dhaqankan gurigan laba daryaala ah noo dhisay sharaftayada na tusay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo mahadsantihiin kulan ballaaran ayuu madaxweynaha Soomaaliland la qaatay waxgaradka degmada Baladhiga gudoomiyaha degmada Baladhiga iyo odayaal kale oo kamid ahaa Boqor Maxamuud Cali Carab iyo sidoo kale Abubakar Aadan Dabi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay meel xuduuda oo dawladda kale aynu walaalanahay oo jaaray aynu inagala dhaxeeya waxyaalo fara badan ayaa degmada ka qabsoomay cid walbana mahad Ilaahay baa leh laakiin yaa hirgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee dadweynaha maanta inala jooga iyo wasiirada hawsha u xilsaaran agaasimayaasha iyo isuduyaasha inoo wada hirgeliyay waa intii xilka xusbiga kulmiye uu talada gacanta ku qabtay sidaas ay ogaanaysaan qurbo joogii kamid ahaa oo gudidii fulinta imaaraadka kamid ahaa waxa la yiraahdaa soo lacagtii madaxweynaha ku fadhiyay kama asaraartamo wallahi kama asaraartamo waa qaadanaa alxamdulillah baranada waa kaas abayna abtigi weeye saddexaad ilaahay baan kugu dhaariyay weliga inta ku imiyo wax ku weydiisay maya jawaabtu waa maya wallahi waxaan ku qanacsanahay nin kasta oo Soomaaliland wax u qabanaya waxaan ku dari lahaa war mucaaradku ilaahayna wuu inala qabanayaa madaxweyne salaan iyo ducaana koo ku farana waxaanu codsananaa baahida degmada ee laga hadlay aad looga hadlay ee lagu noqnoqday in naloo dhagax dhigo wixii naloo qaban karayo maanta hadday biyaha tahay hadday kastanka tahay haddii ay tahay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri sidoo kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa madaxweynaha ka hor halkaasi ka hadlay sheegteen wixii loo qabtay way ka mahadnaqeen midarka u dhibana wixii aynu ka qaban karro waxaan filayaa inaad ula diyaar tahay oo qaban doonto hadda idinku tiraahdeen kuwa kale naga horeysay sidii halka laga lahaana waa ku mahadsantiin waa gobolmo iyo sharaf waxba calaf idinku sheegi maayo waxa la idin qorayna waa helaysaan insha Allah ta'ala wixii minka la idin sidee la idinku tala galayna waa la dhagax dhigayaa aad iyo aad baa ugu mahadsan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa guud ahaanba baahiyihii kala duwanaa ay soo bandhigeen dadweynaha degmada Baladhiga ayuu kaga jawaabay isla gudaha degmadaasi isagoo madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhigay mashaariic aad u tiro badan oo kamid ahaa kastamka iyo sidoo kale xafiiska laanta socdaalka xarun booliis iyo waliba mashaariic kale halkani waa halkii aan u gashay halkani waa magaaladii gurigii hooyaday baan soo eegay maanta horaan dhulka kan u imid waa dhawaada qiinay waan ka raagay maantana insha Allah ta'ala farxadda aan ku soo baray halka kan waa mid aan weliga ilaabaynin weeye waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland.